Su'aasha kale, Assalaamu calaykum. Bulshada Soomaaliyeed maxaa ugu wacan in aysan danaynin akhriska iyo qoraalka? Caajiska dadku in ay ka qaadaan qoraalka iyo akhriska Soomaalida oo keliya ma aha, marka sida dhabta ah loo hadlo. Adduunka oo dhan, inkastoo ay jiraan sababo aan uga duwannahay, haddana casrigani adduunka oo dhan dadka akhriska waa ay ka sii dheeraanayaan. Waxaana ugu wacan waxyaabo ka fudud sida daawashada iyo maqalka in ay soo baxeen. Qofna ma uu dooranayo inuu akhriyo buug isaga oo macluumaadka buuggaasi ku qoran YouTube-ka hab daawasho oo kale isaga oo u heli kara. Tanina waxa ay la xiriirtaa foormulka dabeecadda in bani'aadamka mar walba dhanka fudud wax walba inuu ka doorto. Horumar walba ee bani'aadamku u tillaabsado hadba waxa uu horumarkaasi u kalifaa waxyaabo waa hore jiri jiray in laga tillaabsado. Tusaale, waagii hore adduunka oo dhan wax tiknoolaji ah xitaa TV la daawado, meel dadka laga waco taar xitaa ma uusan jiri jirin. Xilligaasi dadku wax ay qabtaan oo sidaa u dheer adduunka oo dhan kama aysan jirin marka laga soo tago shaqooyinkooda. Akhriska ayaa dadkani oo dhan waxa uu ahaa sida TikTok-ga maanta oo kale isha keliya oo ay ku mashquulaan. Waxaad arkaysaa caalim magaalo inta uu ka soo safro isaga oo gaajoonaya buug akhrin u soo aadaya magaalo kale, isaga oo rafaad iyo dhib ka soo maraya. Dabcan maanta marka taariikhdani dadka loo sharaxayo, hab waxaa loogu sharxaa dadkii hore inay ahaan jireen dad akhriska iyo cilmiga aadka u jeclaa. Laakiin waxaa laga boodaa in dadkaasi akhriska un mooye waddo kaloo ay ku mashquulaan in xilligaasi aysan jirin. Wax waliba aad ayay u xadidnaayeen marka maanta loo fiiriyo. Dadka Soomaalida ahna taariikhdoodii waxa ay ahaan jirtay dad iska reer miyi ah oo adduunkoodii oo dhan beer falasho iyo xayawaan la raaca ku koobnaa. Buug oo dhan wax la dhaho iyo akhris dadka Soomaalida ma aysan aqoonin. Afka Soomaaliga ee maanta aan qornay gebigiisii oo dhan waxa uu jiraa wax ka yar 50 sano. Yacni taariikhda afka Soomaaliga la qoray 1972 waxaa laga joogaa 49 sano. Muddadani kooban ee 49 sana ee afka Soomaaliga uu qoran yahay, dadyowga Soomaaliyeed oo dhan uma aysan suurtagelin in badan oo ka mid ah akhriska iyo qoraalka inay bartaan. Sababtoo ah muddada uu afka qoran yahay ayaaba ah taariikh aad u dhow. Tanina waa sababta ugu weyn ee dadkeenii loo dhaho waxna ma qoraan waxna ma ay akhriyaan. Dabcan marka lagu leeyahay taariikhda afka Soomaaliga la qoray, dadka qaarkood ayaa laga yaabaa in ay ku fakaraan taariikhdaasi ka hor dadku miyaysan af Soomaali ku hadli jirin. Af Soomaali waa lagu hadli jiray, laakiin af Soomaaliga lagu hadli jiray waxa uu ku koobnaa oo keliya hadalka. Waddamada kale ee horumaray marka aad fiiriso taariikhda afafkoodii la qoray aad ayay uga fog tahay taariikhda afkeenii la qoray. Si kastoo dadka Soomaaliyeed ay u dadaaleen burburka, dagaalada, waxbarashada oo af qalaad ah ayaa ugu wacan in qofka akhris oo dhan in col uu la noqdo. Waxaad ku fikirtaa qof isaga oo dhan sida uu u dhashtay af uusan u dhalanin oo Ingiriis ah waxbarasho loogu bilaabay. Qofka isaga oo Ingiriis heer sare ugu hadli karin xitaa aanan fahmayn haddii loo qoro ayuu iskuulka uu ka qalin jibiyaa. Inta uu iskuulka uu dhiganayna hal buug oo af Soomaali ama sheeko ama xitaa taariikh Soomaali buug ka hadlaa nasiib uma uusan helin inuu akhriyo. Jaamacaddiisuna isaga oo afka Ingiriiska si wacan aanan u aqoonin ayuu baaj uu ka qaatay. Ugu yaraan 14 sano iyo 15 sano qof xaaladaasi ku sugnaa, goormee ayuu buug akhrin karaa ama qoraal uu xiiseeyaa? Waxbarashadiisii ayaaba af aanan la garanayn oo adag ku dhisnayd. Dabcan mawduucani sababta dadkeenii waxba aysan u akhrinin waa topic aad u dheer oo mudan in meelo kala duwan laga taabto. Si kastoo ay noqotoba, ugu dambeyn akhrisku waa uu wanaagsan yahay. Akhrisku maskaxda iyo su'aal isweydiinta qofka ayuu kordhiyaa, garaadka qofkuna akhriska aad ayuu u kobciyaa. Rumayso, akhrisku waa dhaqan ama caado qofka haddii uu isbaro muddo kadib waa uu la qabsanayaa. Xitaa haddii qofka uu helo buug uu jecel yahay sida canugiisii oo kale, isaga oo suuliga dhexdiisii xitaa buugga ku dhex akhrinaya waa uu is arkayaa.
hadba sida uu buuggaasi qofku uga baxo ama uu uga helo ayay ku xiran tahay. waxaase ogaataa in adduunka uusan jirin qof buug jecel, keliya qofka buugga waxaa ku qoran xogta uu xiisaynayo in macluumaad dheer ah uu ka ogaado. sidaas ayuu buuggu qofku u xiisaynayaa. waa sida filim qofka uu danaynayo inuu ogaado halka uu ku dhammaan doono.